يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. روحا أن يدا قوينين oo niyada bari ma soontaa mise ma soonti mise ma soontaa mise ma soomid asagoo sida niyadiisu tahay bawaaga ku bariyay soonka ma sii wadan karaa jawaabtu wax weeyaan soonkiisu ma asaxayo niyada shuruudeeda waxa kamida inuu ruuxu qatciyo gooyo niyada laakiin hadduu baltan geliyo oo taraddud ay niyada ku jirto niyo ma لأن النية ما هي نقول شيء وإرادة القلب أم عزيمة القلب وقوان قلبي وقوان معها تردد ما هذو متردد هاي من يونين متبع حليه هاي أنا أفريت من جرة بالرمضان يبان جماعة سمعي مركا ملاهنا هذا وين مركو حليه ما قضاء اللي قربه حكم كي يمحون قن مردي أن أفريت من جرة su-aasha kalena waxay leedahay haddii qofka xaaskiisa uu taabto asagoona jimaac sameyn laakiin ay shahwada ka imaato asagana ma jimaac baa loo xisaabi mise maxaa loo xukunkiisu muxuu noqonay isla midaas oo mid u eegna waxay leedahay online isla xaaskiisa waa ka maqan marka wuxuu leeyahay haddii aan ama waxyaabahan iska arka aan ka arko islaantii saas shahwada ii soo dhaafto maxaa liigu xukumi midda hore oo ah 14 jir aniga oo ah oo sooman baan galmooday jawaabtu waxa weeye qaangaad miyaad ahayd mise maadan ahayd 14 jir qaangaad jira ya Soomaalidu mana waxay moodan 15 jir inuu qaangaad adoo 13 sano jira hadii aad biyo keento soo qaangaad ma tiid hadda dhalinyaro ba jirta 12 qaangaad gabdhaha iska badaayay waagi hore waa la gaajeysnaa hadda aad wax loo cunay waxyaalo la barariyay baa la cunay marka isbedel badan baa jira marka 14 jir hadaad qaangaad ku ahayd kafaaradii baa kugu waajibaysa soonkaaguna waa jabay hadaadan qaangaad ahayn oo markaas aadan qaangaadin soonkaaga aad soontayna wuxuu ahaa sunno ahaa waajib kuguma ahayn haddii aad khalad gashayna wax bini aadam leeyahay mooye wax kugu laazimaya ma jiro oo ilmaha uun kicilin iyo tacziir iyo waxsaas mooye waxba kama laazimayaan kafaara iyo wax kuma laazimaan maadaama uusan wali ruuxu qaan gaadhin laana qaan gaadhka ayaa qalinku ku bilowdaa sooma rufica alqalamu can thalath maadaama aadan qaan gaadh hadaad qaan gaadhayn way hadaad qaan gaadhayna xukunkeeda hore soo sheegay masalada kale xigtay ruuxu haduu xaaskiisa taabto ama dhunkado baashaaliyo sidaas biyo kaga yimaadaan soonkii ma ka jabaya culimada qaar baa qaba saas daradeed waxay leeyihiin haddii taabashadaada iyo dhunkashadaada aad ka baqayso inay biyo keeni doonto ha u dhawaanin qaarna waxay leeyihiin maadaama taabashadiiba la ogolaaday wixii ka dhalan lahaana waa la ogolyahay oo waa kuwa ku doodahaya maba ku jabayo soonku sida ibn Hazm iyo culimo kale almuhim wax weeyaan hadiiba aad ka baqayso inay biyo ka yimaadaan hatta taaban hana dhunkan hana u dhawaan laana wax weeyaan markay ugu yartay soonkaaga waxa galaya hadal iyo shaki baa galaya marka ka fogo qodobka xigay ninka haweentiisa kala xiriiray waxyaabahan la iska arko oo ka maqan oo la sheekaystay oo sida biyuhu kaga yimaadeen wuxuu la mid yahay kii taabtay oo kale laakiin wuxuu kaga duwan yahay culimada qaar qabata taabashada biyaha ku yimaada inay jabinayaan ba waxaynan qabin fiirada biyaha ku yimaada inayna jabinaynin ay qabaan yaani way kala qaadayaan fiirada waxay leeyihiin ibn aadamku iyo taabashadu way kala xoog badan tahay taabashadu way ka xoog badan tahay fiirada marka fiirada way ka fududahay bay leeyihiin almuhim haduusan u qastin oo san muxuu ahay qasad u sameeynin oo isagoo iskala sheekaysanaya oo muxuu ahay ay biyihii yimaadeen taasoo kale to marka waxay leeyihiin fuqaadu in badan oo kamida soonku ma jabayo
saasay qabaan waana mas'ala khilaafiya khilaaf ku jira wallahu a'lam jiray aadaanka iyo aqinka dhaxdiisa inta xilligaasan soo xirtaa u yiri aniga ilaa haddana saasan ku waday halkii ka hor xaalka ninkaasi waa ka soo jawaabay ninkii labada liilan oo barkinta hoosteeda gashaday oo kale la mid aba ka khaldamay walow ay ahayd inuu cadaysto oo wax weydiiyo oo diintiisa u taxadaro haddana hadday saa la noqotay wixii hore uu saa ku soomay ka daba tag ma leh allah aqbalo wixii dambe uu insha Allah taala ha saxo ya nabiga waa ka yidhi sallallahu alayhi wasallam bilaal aadaankiisu yuusan idin diidin cuntada habeenimo aadaamayaay waa aadaanka hore ilaa uu ka aadaamo ibnu ummi maktuum muadinkii labaad buu ahaa oo indhala buu ahaa aadaanka dambe aadaami jiray wuxuuna aadaami jiray maadaama isagu indhala yahay wuxuu aadaami jiray markay dadku ku yidhaahdaan warwaagii wuu bariyay warwaagii waa dilaacay markay ku dhahaan buu aadaami jiray markaasaa marka cuntada la joojin jiray marka aadaanka salaada subax baa cuntada joojiya wallahu a'lam يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال يا نور الهلال